soo kacay oo halkan aan rabay inaan ka hadlo waxa weeyaan arintan miisaaniyada ku jirta ee halkan laga dhawaaqay waxa laga dhawaaqay oo laga hadlay waxa la Soomaaliland waxa ku qoran 400 Soomaaliland waxa weeyaan Soomaaliland wax wada hadal lagu bixiyaa baalay horena 200 baan maqli jiray 200 baa Soomaaliland ku qorano wada hadalada Soomaaliland bay ku qoranta Soomaaliland wax wada hadal oo ka socda ma jiro 3 sano ee dawladda ku jirnay wada hadal Soomaaliya iyo Soomaaliland oo socda ma jiraan wax ku magacaabanina ma jiraan lacag lagu bixin karo iyo wax lagu qaadan karana ma jirto cid qaadata iyo cid bixisa iyo cid ku wada hadashaana ma jirto waayo wada hadalka Soomaaliland waxa la yiri wax gudiya oo magacaabanina ma jirto waayo waxaan adiga walaga tashan oo lagu weydiin adoo taagan oo mas'uuliyadaada ay jirto oo cid labada gole anaga ka tirsan labada gole cid nagala hadasho weydiisay ma jirto gudigaasna wax ka jira oo sharci ay yihiin ma jirto wax wada hadal oo Soomaaliya Soomaaliland 3 sano dhexyaalaana ma jiraan marka lacagta la leeyahay Soomaaliland mashaariicdiiba waraaqada qoraya waa laga joojinaya waxa la Soomaaliland hal cuna qabateeyo mashaariicda laga joojiyo lacagaha laga joojiyo deeqaha soo galay laga joojiyo ma 400 baa wada hadal Soomaaliland lagu sheegay naaba waa xaraan Soomaaliland la iska daayo dhibaato inuu ku filan waa lagu hayaa mar warqad la qoro codka ifur maxay ga xidhaysaa mar warqad la qoro mar la dacweeyo mar la dhibaateeyo mar la caga la qaado oo qas iyo qaqlaan laga soo abuuro iyo dhibaato ku socota in ugu filan Soomaaliland way qabtaa dibna waan ku haynaa laakiin magaceedii 400 iyo xaaraanta laga joojiyo intaasan codsanaya mudane gudoomiye miisaaniyada in laga saaro